jacaylku waa sida kafeega oo kale, haddii aad badsatana lagama yaabo inaad habeenkii dhaqsi seexato. waxa kaliya ee aan huba ayaa ah inaadan ogolayn inaad bixiso lambarka xaaskaadii hore. naagtaadu waa sida face mask oo kale oo cidna kulama wadaagi karto, halka ninku yahay sida koofiyadda oo kale oo ay cid kasta ay gashan karto. jacaylka gabdhaha Afrika kaliya wuxuu arki karaa lacagta iyo gawaarida quruxsan. dumarku waa dawo aan dhakhtar kuu qorin, haddii aad badsatana waad ku sumoobaysaa sida dawada oo kale. markaad tahay nin bidaar leh, dumarku waxay ku moodi doonaan inaad tahay nin xaasile ah, xitaa haddii aadan weligaa guursan. TikTok Soomaaliya wuxuu sababi karaa in rag badani guurka ka daahaan oo iskaabula sii ahaadaan haddii xaalka dumarku sidan kusii socdo. markaad tahay doob fiid hore seexda, dumarku waxay ku weydiin doonaan su'aalaha ah xaas ma leedahay, miyaad shukaansi aadaa habeen kasta, iyo su'aalo kale. indhaha ragga waxaa ka awood badan meegabka dumarku marsadaan marka la joogo xafladaha aroosyada. foolxumada kaliya ee nin rag ay yeelan karo waa lacag la-aan iyo inuusan been sheegin. anigu ma ahi Mugambe ee waxaan ahay Mustafa Alcadaala. fadlan haddii aad ka heshay xigmadahan, subscribe saar YouTube channelkayga si ay kuu soo gaaraan muuqaaladan halkan soo geliyo ee xigmadaha u badan. sidoo kale muuqaalkan la wadaaga asxaabtaada oo u share